dhirbeer oo rajabeer dhirbeeristan guud ee hal gabal Ethiopia ay ku beerisay 800 oo milyan oo geed waxay shacabka Ethiopia iyo guud ahaan shacabka deegaanka u leedahay ahmiyad ballaaran sababta geedkaad maanta beertaa berri ka dambeeya nacfisanaya dhirtii waan qaatay waxaan ka bilaabay gurigayga waa dadaal xoog badan waa hindisihii mataqaanaa xisbiga BBdu uu leeyahay initiative-kii uu lahaa weeyaan marka barnaamijka dadka wada waan soo dhaweynayaa aad iyo aad waan ugu faraxsanahay dadkana waxaan ku wacyigelinayaa haday xaafadaha noqoto haday beeraha noqoto iyo haday suuqa noqotoba dhirta in la beero waxaan garanayaa jigjigadii hore iyo jigjigada maanta la dhireeyay la qurxiyay waxay ku kala duwan yihiin wax isu dhow maaha bilicda dalka iyo magaalada quruxda ku soo kordhiyeen dhirbeerista hadda socota aad baan ugu faraxsanahay horeyna dhirta waa loo beeri jiray muddooyin badan oo soo beeray marka dhirtu waa nolosha bulshada waxa weeyaan waa wax lagu raaxaysto weey waana sunna diinta islaamka qofku waxa leeyahay haday naftu kaasi baxayso geed taag buu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadaa naftu haday ka baxayso xabad geed inay taagto waa sunna marka dhirtu waa shay diinta islaamka qiimo ku leh oo martaqaanay aad ugu weyn islaamka dhexdiisana aad loogu amaanay marka wax ilaahay looga helay weeyaan garabsiya dawladda bulshoy door kastay tahay diinteena weeye dad yahuudida qashinkoo dhan dariiqyada ku beergeeda hana dama la waaweyndhe wax kastaba hormood noqo ku beer doog iyo caleendhe tacadnima ku maamula dhirtuna waa ildoogsigaye isxilqaan dadkaygow awooddan iyo xeesheena